Saddex shay Allah laga magan galaa. Kow, qof caalim ah oo ilaahay cilmi iyo aqoon siiyay, haddana cilmigiisa aqoontiisa aan dadka la wadaagaynin oo dadka wax baraynin, ilaaha laga magan galaa. Labo, waxaa ilaah laga magan galayaa qof jaahil ah, og inuu jaahil yahay, haddana aysan diyaar u ahayn in cilmi iyo aqoon uu jaahilnimadaas isaga saari karo uu raadsado, kaasna ilaaha laga magan galaa. sababtoo ah dhibaatadu ku geysanayo iyo dhibaatadu asigu isu geysanayo aad ay u farabadan yihiin. Qaybta saddexaad oo ilaah laga magan galayo waxaa waaye qof madluum ah oo la dulmiyay haddana aamusan. Qofka madluumka ah waxaa la rabaa in dulmiga iyo dhibaatada loo geystay uu sheego haddii uu sheegi karo, haddii uu tilmaami karayna uu tilmaamo qaabka ugu habboon oo dulmigaas loo geystay uu ku muujin karayo uu dadka kale ku ogaahin karo inuu sameeyo.